tan iyo markii dunida galbeedka ay ku baraarugtay duulaanka Moscow ee Kiev, xukuumadda Moscow waxa ay guda gashay abaabulka iyo dib u habeynta hanaankeeda kala duwan ee difaaca. Hadda militariga Ruushka ayaa ku guda jira diyaarinta gantaalka S-500 oo ah habka ugu casrisan ee difaaca hawada ee dalkaasi, sida uu ka dhawaajiyay hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaas Vladimir Putin. madaxweynaha waddanka Ruushka ayaa warkaani ka sheegay mar uu khudbad gaar ah u jeedinayay arday ka qalin jebisay kulliyadaha ciidamada ee Moscow, isagoo ku tilmaamay qorshayaasha Ruushka ee soo saarista hababka kala duwan ee hanaanka horumarsan ee difaaca, kaas oo uu yiri waxay go'aamin doontaa awoodda dagaalka ee ciidamada lugta iyo ciidamada badda sanadaha iyo sidoo kale dhowrka ee ina soo aadan. madaxweyne Putin waxa uu tibaaxay in hababka gantaalaha ridada dheer ee S-500 oo loogu talagalay in lagu qabto diyaaradaha iyo gantaalaha lagana yaabo inuu leeyahay xoogaa awood sare ah oo lidi ku ah dayax gacmeedka inaanu jirin mid la siman ama u dhigma oo waqti xaadirkan dunida oo dhami ay haysato. waa sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha waddanka Ruushka. hanaankan difaaca ee S-500 waxaa naqshadaysay shirkadda hubka samaysa ee Almaz Anti si ay u sii ambaqaado hawlaheeda horumarinta gantaalada ridada dheer ee cirka cir ah sida S-400 iyo S-300. waxaa la rumaysan yahay in S-500 uu gaari karo masaafo dhan 600 oo kilomitir, waxaana uu awood u leeyahay inuu ka hortago bartilmaameedyada ku socda xawaaraha sare sida kuwa guuxooda ka dheereeya oo ay ku jiraan madaxyada gantaalaha balastiga ee qaaradaha isaga kala goosha. madaxweyne Vladimir Putin ayaa aaminsan in muhiimadiisa koowaad ay tahay sida uu qarankiisa u gaari lahaa isku filnaansho doc walba ah si uu uga fogaado isku dayada cadowga uga imaanaya. waa sida Putin uu hadalka u dhigay. maamulka Moscow duulaanka Kiev waxa ay kala kulantay cambaareyn caalami ah, cadaadis joogto ah iyo cunaqabatayn doc walba dalkaasi ka saamaysay. sidaas uu xaalku yahay, Putin iyo maamulkiisa marna uma dhaga nuglaanin handadaadaha galbeedka ka imaanaya. waxaase muuqata fadhi kasta oo ay yeeshaan NATO, isku imaatin kasta oo ay midowga Yurub yeeshaan, dhammaantooda doodaha waxaa hareeya qadiyadda Moscow, duulaanka Kiev, aragtida gobolka, badqabka wadamada ku yaala xuduudaas iyo sida xaalka mustaqbalka dhow uu ekaan karo marka doc kasta laga qiimeeyo isku dayada ballaaran ee maamulka Putin iyo sida uu indhaha iyo dhagaha uga laabtay in uu u dhaga nuglaado fariimaha uga imaanaya galbeedka, taas oo isaga u arko mid wiiqaysa dadaaladiisa iyo hanaankiisa dowladnimo oo dhammaystiran.